Waxa uu qaatay shahaadada PhD isagoo indhoolaha ah, waxaana uu ka mid noqday dadka boodhka iska rogay ee awoodahooda baraarujiyay hadafyadoodana xaqiijiyay si walba ay noloshu ugu adkaato. Dr. Zaki Cusmaan ayaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena maanta. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada channelkan ku leenahay YouTube. Fadlan haddii tahay markuu ugu horsana soo booqatay subscribe ku jikan baraalkana taawo si aad noogu sabirtid muuqaaladeedna ay kusoo gaadhaan. Dr. Zaki Cusmaan waxa uu dhashay bishii February 1953. Waxa uu ku dhashay tuulo la dhahdo Rusayqaad, kana tirsan gobolka Qaana ee dalka Masar. Waa ilmo aan dabiici ahayn. Aabihii wuxuu ahaa oday yar oo miskiin ah, diintana jecel kuna dhaqma. Zaki markii ay da'diisu ahayd 2 sano iyo badh, waxaa ku dhacday xumad aad u kulul taasoo sababtay inuu qaado xanuunka Ebola, wuxuuna ku sababay indho-beel. Waalidkiisuna inay daaweeyaan way ku dadaaleen. Ugu dambeyntii dhakhaatiirtu waxay u sheegeen inaanu daawo lahayn oo aanu xanuunkan ka bogsanayn, taas oo waalidka aad uga murugoodeen, laakiin mayna rajo dhigin. Qoyskii way isku khilaafeen, waxa ay qaarkood ku taliyeen inay iska tuuraan si ay dhibtiisa uga takhalusaan. Labadii waalid arrintii way diideen, waxaanay go'aansadeen inay qoraalka baraan. Sanad kadibna qoyskii waxay u guureen Qaahira, halkaasoo waalidka shaqadiisii loo soo bedelay. Waxay degeen xaafadda Maashiya Sadri. Waxay u geeyeen mid ka mid ah culimada si uu wiilka qur-aanka u baro. Runtii wiilkii yaraa qur-aankii wuu xafiday, wuuna bartay macnihiisa iyo tafsiirkiiba. Wuxuu noqday mid guriga ku xabisan ilaa uu ka gaadhay da'da 16 sano, isagoo aan wax iskuula lagu darin. Wuxuu idaacadda ka dhagaysan jiray barnaamij joogto ah oo la yiraahdo Maalmaha, waxaana barnaamijkaas soo dayn jiray Daaha Xuseyn. Markaas wuxuu ku riyoon jiray inuu noqdo sida Daaha Xuseyn oo kale. Dr. Zaki waxaa sidoo kale riyadiisa ka mid ahayd inuu noqdo khadiib, imaam iyo daaci. Wuxuu sidoo kale raadiyooga ka bartay luqadda Ingiriisiga oo weliba si fiican u adkeeyay barashadeeda. Wuxuu dhagaysan jiray barnaamijka la yiraahdo Al-Arabi. Riyadiisa waxay ka mid ahayd inuu noqdo shakhsi muhiim ah oo meel sare gaadha. Arrimaha cajiibka ah ee uu lahaa Zaki Cusmaan waxaa ka mid ah markii uu da'diisu 5 jir ahayd, waxa uu soo bixi jiray guriga hortiisa, markaasuu qur-aanka cod sare ku akhriyi jiray, khudbadayn jiray siduu khadiib yahay oo kale. Sidaa ayuu maalin walba samayn jiray, dadkuna way ku soo ururi jireen. Waxbarashada waxa uu bilaabay markay da'diisu ahayd 16 sano jir, wuxuuna toos u bilaabay fasalka 1aad ee dugsiga dhexe. Wuxuuna ka bilaabay macadka Cusmaan Maahir, waana laga cafiyay iskuulka hoose maadaama uu qur-aanka xafidiyay. Wiilkii yaraa waxbarashadii guul weyn ayuu ka soo hoyay, kadibna waxa uu galay dugsiga sare ee macadka Qaahira. Halkaas ayuu 4 sano ku jiray. Waxa uu ahaa mid madrasada taga isagoo garbaha lagu sido ama isagoo dhulka gurguranaya, ha noqoto xilli jiilaal ama xagaaye. Arrintu aad bay u adkeyd. Waqti roobku da'ayana isaguna dhiiqada ayuu dhex gurguran jiray marka uu tagayo madrasada. Imtixaankii dugsiga sare ayaa loo soo sheegay inuu ku dhacay, arrintaas oo waxaan la filan ku noqotay, laakiin isagoo qoslaya ayuu aqbalay. Waxaa haddana soo baxay warkadiisa ahaa inuu sheegay inuu imtixaankii baasay, laakiin liiskii indhoolayaasha ayaa meel kale yaalay. Taas ayaa khalad ka keentay. Markii uu dugsigii sare ka gudbay, waxa uu doonayay inuu galo kulliyadda luqadda iyo turjumidda, laakiin fikir dheer kadib wuu bedelay oo wuxuu goostay inuu galo kulliyadda usuusha diinta. Kulliyadda usuusha diinta waxa uu ka helay 2 shahaado, mid ku saabsan dacwadda iyo ilbaxnimada Islaamka oo sanadkii 1979 ah. Sidoo kale waxa uu bachelor kale ka qaatay tafsiirka sanadkii 1983. Dr. Zaki Cusmaan waxaa loo magacaabay inuu ka shaqeeyo wasaaradda awqaafta sanadkii 1980 ilaa 1987. Sidoo kuma joogsan, wuxuu helay shahaadada masterka sanadkii 1986. Mowduuca uu ku qaatayna waxa uu ahaa manhajka Islaamka ee korinta dhaqaalaha. Waxa kale oo uu noqday mid idaacadaha barnaamijyo ka soo daaya, kolba siduu shaqo u qabanayay ilaa uu ka gaadhay madaxa qaybta ilbaxnimada Islaamka ee kulliyadda. Waxa uu qoray 24 kitaab oo uu ka qoray dacwadda iyo tafsiirka ilbaxnimada iyo cilmiga bulshada. Wuxuu ka qayb qaatay qiimayaasha imtixaanka ardayda tacliinta sare. Shahaadada ugu dambaysa la yiraahdo PhD, in ka badan 17 kitaab ayuu qiimeeyay, waxaana ka mid ahaa manhajka Islaamka ee xaqiijinta amniga, asbaabta keenta argagixisada iyo sida loo daweeyo, arrimaha keena burburka qoyska, majaalada Bayaan iyo doorka ay ku leedahay fidinta Islaamka, dadka baahiyaha gaarka leh iyo mowqifka Islaamka. Ugu dambeyntii Dr. Zaki Cusmaan waa uu guursaday, waxaanu helay haweeney fiican oo ay isfahmeen, waxayna ahayd mid ka caawisa dariiqiisa guusha. Waxaa ka dhaxeeyay jacayl dheeraad ah, jacaylkooduna waxa uu ahaa mid Ilaahay daraadiis ah.
maanta muuqaalkeen intaas aynu eegayaan. fadlan la dhamaystay like saar muuqaalka siina share garee si uu gaadho asxaabtaada kale.